saddex sano kadib ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kampala ayaa waxa ay ka qayb galeen tartanka hidaha iyo dhaqanka ee qowmiyadaha kala duwan ee lagu qabto dalkaasi. warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay oo inoo soo diray wariyaheena Cabduqaadir Cumar Cabdulla Fiidka. waa tartan sanadle ah oo ay hidde iyo dhaqamadooda ku tartamaan ardayda qowmiyadaha kala duwan ee wax ka barata jaamacadan. 3 sano kadib waxaa sanadkan ka dhex muuqda ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda caalamiga ah ee Kampala. qowmiyadaha qaaradda Afrika ayaa leh dhaqamo kala fog, balse qole waliba ayaa halkan ku soo bandhigaysa dhaqamada iyo hidooyinka u gaarka ah. waa sidee dareenka ardayda qowmiyadaha kala duwan ee ka qayb galaysa tartankan qaarkood ayaa inoo waramay. awalena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan haddana noo soo ilaatay ciyaartii aan ku tirtamaynay aan ugula tirtamaynay dadyooga kale ee kala duwan ee maxay matalaya. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka mid noqonay ama ka mid nahayba in maxay ciyaaraha la soo bandhigayo. waxaan maxay rajaynaynaa guul aniga iyo teamkeena waxaan wada sugaynaa hadda waxay tahay resultigii oo ah inaan guushaas anaga qaadi doono haddii Ilaahay rabbi ka idmo. My name is Pulkola Njolo Chabanya. I am a Karamojong from northern eastern Uganda, district called Moroto. Karamoja is made of 7 districts, and from the beginning it used to have one district called Karamoja. That was by then Drivency. But as time goes on in terms of administration and this other local servicing delivery, so they decided to make it deliver district to many other parts of the region. And now that as being Karamojongs, we love our culture and we are too proud about it. Karamoja is one of the richest places, named it by minerals, by culture, by love, cows. So I am too proud that we happen to have come to this university. محل هذا dhaqankii oo culture-kii oo culture gaala leeyahay oo sanad kasta la qabto bishaan oo kale marka ma sha Allah ardayda Soomaaliyeed waxay soo bandhigeen maxal dhaqan cajiib ah ummadii kale oo meesha joogana aad bay u soo dhaweeyeen taasoo noo muujinaysa inaan maxal hada sharafteeni iyo calankeeni iyo ummadeeni ku metelno marka waxaan leenahay kulli Soomaali meel joogaanba waxaan leenahay hambal iyo ardayda Soomaaliyeed qaasatan meel walba joogaan inta codkeena maqlaysa inta daawanaysa intaba. Somali Cable TV wasida u jeedaan maanta waxaan ka qayb qaadanaynaa dhaqanka ama culture-ka jaamacadda KIU ee qabata sanadlaha. waxaan markii u horeysay oo ma ahan aan ka soo qayb galay dhaqanka sanadkii hore waan ka soo qayb galay balse waxaan nasiib darre ahayd inaysan ku jirin wax Soomaali matalo inay ka soo qayb galin. maanta se waxa sharaf ah oo aad ugu faraxsanahay maanta maalinka hore dareenkayga uu ka duwan yahay sababtana waxa weeye maanta calankii Soomaaliya anagoo Soomaali ardayda jaamacadda dhigata yaan waxaan bedelaynaa inaan ka qayb galno dhaqanka Soomaalida ee leedahay. ka qaybgalka tartanka sanadkan ardayda Soomaaliyeed maxay kaga dhigan tahay waa kan hormuudka ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda KIU Bakar Ali oo ka waramaya. bismillaahir rahmaanir rahiim. awalan oo mahad celinaya bahda Somali Cable TV oo yaani marti noogu ah maanta barnaamijka culture-ka ee jaamacadda KIU ay qabanayso. runtii sidaad arkayseen ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda KIU waxay soo bandhigtay dadaal badan iyo juhdi badan oo hadda feeskii koowaad waa ka gudubnay oo ahayd heesta atamka jaamacadda in la qaado. waana arkayseen sida shacabka iyo taageerada ay u muujiyeen dhammaan shucuubta kala gedisan ee Afrika ee ku sugan goobta markii aan soo galnay. haddii ay tahay dharka aan xiranahay oo dhaqankii Soomaaliyeed ah, haddii ay tahay qaabka isteelka, haddii ay tahay socodka, haddii ay tahay nooc walbaba waxa waaye aad baan maaragtay sheegeen ugu dadaalnay. runtiina hadda waxaan sugaynaa natiijo miro dhal ah inaan ka keenno. feeskii labaad ayaa hare oo ciyaaraha iyo dhaqanka ah
marka insha Allah tacaala waxaan rajeynaa afka ardada anoo ku hadlaaya in ilaahay idinkii dhammaan aan qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedba aan ku metelno dhaqankooda aan guulka keenno insha Allah. sanadkiiba mar ayaa sidan oo kale loogu qabtaa jaamacadda caalamiga ah ee Kampala waxaana hiddo iyo dhaqankooda ku soo bandhiga ardayda ku dhawaad 25 qowmiyadood oo ka kala socda wadamada qaaradda Afrika. Waa Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, caasimadda Kampala, telefishinka Somali Cable.